saaxiibada qiimiga badan oo ku soo dhawaada muuqaalka xigay IM252 Facebook waa qaybta ugu badan ee badanaa ka adeegsano baraha bulshada. Dad badan ayaa aaminsan in ay fududahay in la iska jabsado Facebook-ga. Waasi ku tiro kuteen oo ana ku xaqiijinaya in ay aad u adag tahay in laga jabsado Facebook-gaaga. Waxaase jira xeelado iyo qiyaanooyin fudud oo dadka wax jabsada u suura gelinaya in ay si fudud u jabsadaan Facebook-gaaga. waasi haddii aadan ka warhayn oo aadan ka feejignaan xeeladahaas ay adeegsanayaan. Toddobaadyadii tagay waxa isa soo tarayay oo badanayay tirada dadka ka sheeganaya kana murugeysnaa in la jabsaday Facebook-gooda. Haddiiba aan sii tixraacayna waxaan ogaaday in qaabka loo jabsaday u badan tahay halka nooc ee muuqaalkan kaaga digayo in kaagana loo jabsado. Ogowna inta badan haddii dadka wax jabsada ay sidan u jabsadaan Facebook-gaaga waxa ay tirayaan dhammaan tixraacyada iyo waxyaabaha kuu fududayn lahaa in aad dib uga ceshato Facebook-gaaga sida email-kaaga iyo telephone number-kaaga. taasoo ka dhigaysa mid aad u adag in aad dib uga hesho cinwaankaaga una bedelaysa Facebook-gaaga meel uu ku nasto qofka jabsaday isagoo daalcanaya fariimahaaga adeegsanayana xogta gaarka ku ah sida sawiradaada iyo sirtaada oo idilba. Waana marka aan aadka uga xumaanaya in qof Soomaaliya uu dhibka gaaro. aan ku faahfaahiyay xeeladaha lagu qayaano dadka ee Facebook lagu jabsado waxaa ka mid ah noocan halista ah oo aysan dad badani ogeyn. waxaa loo yaqaanaa phishing. waana sidan habka loo sameeyo. balse ogow kuma tusin doono habka saxda ah ee loo sameeyo ama loo jabsado si aysan uga faa'iideysan dadka raba inay wax jabsadaan. balse si fudud ayaan kuugu sharaxi doonaa si aad u fahanto ugana digtoonaato xeeladan phishing-ka ah. waxay xeeladan ka bilaabanaysaa sidan. qofka wax jabsada ayaa samaysanaya ama iska diiwaan gelinaya website muuqaal ahaan u eg Facebook balse aan ahayn midka saxda ah. waxa uu qofka wax jabsada u diraya website-kaas beenta ah ee Facebook-ga u eg qofka uu rabo in uu jabsado. ogowna waxa uu kugu soo diri karaa email, messenger, WhatsApp iyo meel kasta oo wax la isugu diri karo xitaa fariin qoraaleed. qofka la jabsaday waxa uu furayaa uuna gelayaa website-kii beenta ahaa ee Facebook-ga u ekaa ee loo soo diray. waxa uuna gelinayaa xogtii uu ku geli jiray Facebook-giisa saxda ah. haddii uu ku geli jiray telephone number ama email waa uu gelinayaa. kadibna furashareedkii Facebook-giisa saxda ahaa ayuu gelinayaa. waayo waxa uu u haystaa in uu yahay Facebook-ga saxda ah mana aha waxaa loogu talagalay ugaarsi. marka uu qofka kale soo geliyay waxa uu Facebook-giisa saxda ahaa ku geli jiray waxaa xogtaas loo dirayaa qofka markii horeba samaystay website-kan beenta ah ee Facebook-ga u eg. waxa uuna sidaas fudud ku heli karaa xogtii aad ku geli jirtay Facebook. sidaa ayuu ku galayaa Facebook-gaaga una bedelanayaa email-kaaga iyo telefoonkaagaba. halkaa ayay kusoo gabagaboobaysaa taariikh nololeedka Facebook-gaaga. sidee looga hortagi karaa? waa su-aasha igu soo laabanaysa ee aan jawaabteeda u heelanahay. 1. iska ilaali in aad furto linkiyada aadan aqoon ee laguu soo diro. haddii aad doonto xitaa fur ka digtoonow un haddii lagu yidhaa soo geli waxa aad ku geli jirtay Facebook-gaaga marna ha ku fududaan in aad geliso. 2. haddii aad kombiyuutar ka gelayso Facebook qaybta kore ee website-ka la geliyo haddii aysan ku qornayn ama ka bilaabanayn facebook.com muuqaalka website-kaasna u eg yahay midka Facebook ogow waa halis oo ha gelin furashareedkaaga. ama si ka fudud adiga gacantaada ku qor facebook.com qaybta website-ka lagu qoro si aad uga shaki baxdo. 3. iska ilaali link kasta oo markii aad furto ku geenaya website u qaab eg Facebook. 4. haddii aad telefoon ka isticmaalayso waxaa kuu fiican inaad adeegsato barnaamijka ama appka Facebook. waxay la tahay in maanta kadib aad si fudud u garan karto qayaanadan ugana hortagi karto weliba. muuqaalo kale oo taxane ah ayaan uga hadli doonaa farsamooyin badan oo aad Facebook-gaaga ku ilaashan karto. fadlan u sheeg asxaabtaada inay iska diiwaan geliyaan bogga im252.com si ay u helaan xogta tiknoolajiyadda oo kooban. haddii aad adigana isdiiwaan gelisay waan kaaga mahad celinayaa. guulayso.